gabadha waxay leedahay 70 jir haddii laga dhintaa saay ma qaadaya maama 70 sano jirtay odaygeeda oo dhinta meelaha 70 sano jirta ama la damcay camal ay ka wada u fahmi okay waxyaabo waxaa jirta arrintan su'aal aad u fiican waaye waxyaabo waxaa jirta dadka fahamsan yihiin qalad ay ka fahamsan yihiin waxaa ka mid ah oo kale gabadhan waxaa lagu leeyahay 6 sana laga maqnaa ama 10 sana laga maqnaa ama 1 sana laga maqnaa ninkeeda waa uu furay cidda ma gelaysaa 3 bilood kale may gelaysaa ama gabadhan waxaa waa 9 sana 8 sana laga dhintay asay ma qaadaysaa wixii axkaam oo ciddada ku saabsan ilaahay agtiisa inaaga timid xikmaana ka dambayso hadda gabadha maalan gabadha waa la furay 4 sana laga maqnaa waa la furay cidda ma gelaysaa haa way gelaysaa sababta maxay tahay sababtu waxay tahay ninka markuu furay jaanisa labadaba la siinayaa gabadhan jaanis ina ninkana jaalisa inay gadaan recalculation DBS marka aragno markii exit qaladka baxdo waa kala recalculation gadaal nuga warmeel qaadaha ka baxay gurigeyga waa burburay gadaal isugu noqda tan oo kale xisaabtankaas loogu talagalay inuu xisaabtamo ilaa 3 bilood 3 dhiiga la siiyo uu dhinta xataa ninka waqtigaas uu dhinta iyadoo la furay uu dhinta cidadeedu ku jirta xataa way dhaxlaysaa yani waa laba isqabta ahaan waaye furitaana dhacay laakiin guriga waa la wada jooga axkaama ka dambeeya waxyaabo maamada 90 jirka haduu ninka ka dhinto cidda ma asay ma qaadaysaa haa waa qaadaysaa asayga iyo cumriga shaqo isku malahan wallahu a'lam Allah ku barakeeyo Sheekh Ahmed intaan ku fasaxin gabadhan walaashay degan su'aashaada waa arkay sheekhan oo ku weydiina ana hadal aan kaaga dambeyn doona insha Allah sheekh intaan fasaxin la joog Sheekh Ahmed hal mar mala gaaray meesha ii fiiri kadib su'aasha ku weydiiyay saani tirada ma gaartay waa su'aal ku dhowdahay 3300 waaye 3300 5,000 meeshaas giftii gaarsii su'aasha weydiiyo Sheekh Ahmed gabadhan walaashay degan waxay leedahay waxaan isticmaalaa lug caag okay lug caaga isticmaalaa markaa guriga joogo dabcan caadi ah isaga tugtaa laakiin markaa banaanka aado oo lugta caaga aan isticmaalayo dadka qaar macnaha aysa ogeen salaada lugteeda caaga ma ku tukan karaa بسم الله إلهي سبحانه وتعالى قبلنا الله حفظيه كل لقطة صوب إلهي سبحانه وتعالى أجر ولبعتك سوق كارتي لأن قفكم مسلم لبعتك كارتي إلهي سبحانه وتعالى وحارجين وأجر كسر النبي قال ما شيء قفكم مسلم لبعت هذه كانت حتى قربت هذه تفتو أجرك وهي ليس أجر وقف أسكو هلا هاوي كنت كن كرتا لوقت هذا واحد إن شاء الله تعالى هذه طاهر تاوي كنت كن كرتا ويرات واحد مرة الله بركة ولا شيء أنه حنكو قدرة qofka hadii ilaahay lixaadkiisa meel kamida uu ka qaado ama il ama gacan ama lug whatever duu ilaahay ka qaado kuna sabro u fiirso kuna sabro asagoo ku sabarsan aaminsan waxaan inuu ilaahay ka qaaday ilaahayna macnaha uusan lug kale inuu siiyo il kale ama gacan kale inuu ilaahay siiyo inuu ilaahay uu awoodi waayay aaminsan tahay sida ku dhimato aakhir markii dadka la soo baxo way ka duwanaahay dadka kale waa ka duwanaanaysa taaj gooni iyo si gooni iyo maqaam gooni aan lagu maamuusaa marka ku sabar abaayo ku sabar ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo Sheekh Ahmed ku ducid oo ku sheegay waxaan ku weydiinaynaa abaayo bedelka khayr qabo inuu ilaahay ku saalo qalbigaagan ilaahay sida roon oo soo xijiyo wallahi waa su'aal cajiib ah qof lixaadkiisa wax si ka ah haddana qof dumar ah haddana lug caaga isticmaalaya ku dhayso haddana ku weydiinaysa salaada ma ku tukan kara waa cajiib wallahi waa cajiib su'aasha ugu dambaysa Sheekh Ahmed weydiinaya kadibna kitaabada ayuu noo fasiraa insha Allah oo noo sharxa Sheekh Ahmed su'aashan inta badan dadka ma ogo gabadha haddii uu ninka furo ninka iyo gabadha haddii isfuraan ay kala tagaan gabadha aysan ninka iyada aysan rabin asaga haddii uu dhahayo waa kugu noqonaa ama waa kugu noqday uu dhahayo gabadha idin ma laga rabaa kusoo noqoshada soo kusoo noqona idin ma laga rabaa ilaa ninka uu ifur waa kala tagnay sida uu kala tagnaa ku kala dhamaanay ee iyada gabadhi taagan tahay asayna gabadhi inuu ku noqdo rabaa ku noqoshada markii idin ma u baahan yahay inuu weydiiyo gabadha noqoshaalkeeda ciddada haddii ku jirto talaqadna weli ay u dhiman tahay uu ku soo noqona idin uma baahno haddaysan rabin waxyaabo kale ay dalban kartaa maxkamaday tay kartaa waxay dhihi kartaa ninka ma rabin ama fasqi dalban kartaa ama khuluci dalban kartaa laakiin intay ciddada ku jirto ninka xaq uu leeyahay inuu soo ceshto xaq uu leeyahay uu soo ceshto weli kale mar rabta soo maahan qasama jiro processkeeda maxkamadda tag culamada u tag ninka ma rabin ama ha lagaa furo ama ha lagaa fasakho ama khuluc ha lagaa sameeyo taas waxay noqonaysaa waa process kala waaye laakiin markuu ku furo xaq uu leeyahay inuu soo ceshto wallahu a'lam الله كبرك شيخ أحمد كتاب بدأ أنه شرحه إن شاء الله وكل جيسانينا ولا شيء دقن هاي قتاقن جو
أنا وسيء جوا شيخ أحمد صلاة دو هذا وفزحنا وعن يقعد سنة جفتي حاجة تكتين كنترتين كتاب هذا الشيخ أنا شرحه كدب شيخ أحمد أنا عاود داسي قلبيا وحكا قعد صلو oo si saaxiibka walaalka wiilka ardayga wax walba kaaga codsado walaa waxa rajay lahaa ducada caawa si qaas ah 80% ama 90% inaa si qaas ugu kaamishid gabdhaha dumarka hooyooyinka walaalaha inta badan waxa dhib haysta ama duco dalbanaya ama qayrka ka faa'iideysan ama qayrka joog gabdhihii u badan yihiin caawa inaanan la simin 80% ama 90% si niidan kaaga codsanay gabdhahaas walaalaheen inaad si gooni iyo ugu duceysid marka kitaabada ka baxna insha Allah Allah ku xifdiyo shacab barakallahu fiik taasoo loo fiilaa khayr adiin wada sii dhamaantiina walaalaha ku jiro dad badan ku jiro iyo ustaad caruushbo kitaabada marka waa kitaabadii hore u taqaaniin waaye kitaabkan waa kitaabkii ducooyinka waaye dad badan ay weydiiyo halkee laga helaa sidee loo helaa walaalkeena noo haaye kitaabkan waa ducooyin magaciisa u jeedaan waa maalin walba farxad dadka maalmaha waxaad u batmurugtii walwalkii mushkiladii badatay waxyaabo waxaa jirta ka hor istaagay waxaas qofka inuu walwala waxa keeno qalbiga ibar qalbi jirada dadku dhacda laba qayb jirana jismiga ku dhacda jismigana jiran ruuxda ku dhaca kan jismiga ku dhacda dhakhtar uu tagaysa uu ku daaweynaa laakiin kan ruuxda ku dhacdo alkaarta lagu daaweeyo ducooyinka lagu ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub dhikri ilaahu qalbiga ku daga mar kitaabkan ducooyinkaas waay ayaa ku qoran waxaa ku qoran 100 dhowr duco ku qoran oo qof walba muslim u baahan yahay ducooyinka u baahan ducooyin markaas u baahan tiid maahan oo u baahneen maalin kasta ducooyinka u baahan tahay kitaabku wuxuu ka bilaabanaa marka intaadan siixanin uu ka bilaabanaa wuu soconaa مثلا ducooyin kitaabkan waxaan ku sameynaa wuxuu ku qoran yahay Soomaali ayuu ku qoran مثلا ducada ugu horeysa oo kale ma jeceshay in lagu ilaaliyo habeen walba shaytaan uusan ku soo dhawaanin qof walba uu jecel yahay Soomaali in habeen walba la ilaaliyo shaytaan uusan ku soo dhawaanin jawaabtaadu waxa waaye ha maxaa sameynaysaa marka waxaa sameynaysaa ducadan meesha ku qoran ayaa aqrisinaysaa tayib ducadan meesha ku qoran yaa noo sheegay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam halkuu inoogu sheegay anuu noogu sheegay ducadii takhriijkeeda meeshaas ay ku qoran tahay marka saasay ku soconaysaa مثلا دعوة كسوسة وحاكو جوست بيش سجالي طبعا هذا كله هدان تكنو بيش سجالي طبعا تدي لا تجو وحاكو قرنا كله مثلا قف كدد حاجر هذين كسوسة أما نحاجر صومهن دعاء ذا سو كله أقرس نبيين كده ولدك كسوق عدد أما أصلا نحت أسوق عدد النبي صلى الله عليه وسلم خالد ويوم يا رسول الله بينكي وأنا نحان سنة سوق عدد محاسن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء ذا نوبر أعوذ بكلمات الله تام دعاء ذا نوبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أقصد أيوب بر marka ducadan waa ducooyin maalinkaas u baahan tahay ducooyinka waxa ku jirto oo qalbihii iyo subaxdii la aqriso karo ducooyinka inta dharka xiran suuli inta gelin ducooyin maalin walba baahan tahay ku jirto مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سدح مر صبحي وحول بالا كافنا قلبت نسو كل وحول بالا كافنا مر كتاب كان وحو قرين عربي iyo Soomaali ku qorin ducooyinka qaar kood aqri kan iyo Soomaali ku jirta waa aqrisanaysaa ducada waatan la ilaaha illa wahdahu la shariika lahu alim maqri kan iyo Soomaali meesha ku qoran marka ducada kitaabkan waa saas oo maalin walba farxad laha wuxuu ku qoray carabi Soomaali ku qoran yahay dadka Europe iyo Mareykanka iyo Canada Australia joogo waa loo soo diri karaa numberka waxaan ka rajeynayaa inuu ku soo qoro maadaama waxaan ku qori karaa ustaad caruush inuu ku soo qoro numberkaas meesha ku jiro ayaa lagu qori karaa oo telefonkeyga caadi 614804089 kaas ayaa lagu soo qori karaa kaas waxa waaye kan anaga noo lagu talagalay waxaa